الله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبتي في الله فدقا وفدقي اللبات سلسلة أما حلقاتك عن كل الدينيني ننكا رافدقا الشيعة ee taxriifinayay aayadaha qur-aanka iyo sunnada nabiga isla markaana sheegayay shubahaad iyo been iyo kadib. xalqadan waa xalqadii labaad waxaana ku cadayn doonaa insha allahu tacaala qaar ka mid ah ninkaasi baadilkiisa iyo akaadiibtiisa. tacliiqa ugu horeeya oon maanta aan tacliiqinayna waxay tahay mar kasta oo ninka raafidiga uu dooda soo fadhiisanayo wuxuu naftiisa ku tacriifiyaa inuu yahay min mumathili madrasati rasuul sala allahu calayhi wasalam, inuu yahay nimanka mathalayo madrasadii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam. bimacnaa isaga wuxuu ka soo baxay madrasadii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam, wuxuuna wadaa hadyii iyo sunnadii nabiga calayhi salaatu wasalaam ninkaasaa wado. bal aan fiirino isagoo lacanadayo gaalaysiinayo abibakar cumar khulafaa uraashidiin oo dhan iyo saxaabada. haddana xaqiiqatan aniga faaraxa waxaan matalahayaa madrasadii rasuulullaahi moxamed sala allahu calayhi waaalihi wasalam ama mumahiliinta madrasada rasuulka ee loo yaqaano culamaau shiica, dadka qaarkoodna ay yidhaahdaan culamaau raafida. magacaygu waa faarax ibraahim sheekh cabdi, waxaan ka socdaa mumahiliinta madrasada rasuulkeena sala allahu calayhi waaalihi wasalam ee loo yaqaano culamaau shiica alithna cashariya. ninka raafidiga ah hadalkiisa marka wuxuu u baahan yahay uu mar walba hadalka ku bilaabaya anigu waxaan ahay nimanka mathalo ee horyaalka u ah madrasada nabiga calayhi salaatu wasalaam uu leeyahay. wuxuu u baahan yahay hadalkaas inaan baraarujinno waxa fasaad ah iyo waxa gaalnimo ah iyo waxa kadib iyo beena uu xambaarsan yahay inaan caddayno. maxaa yeelay hadalkan saan caddayn doonno waxaa ka dhalanayo nabiga sala allahu calayhi wasalam xaqiisa iyo sharafkiisa oo la durayo, sida loo durayo waan idiin caddaynaya. waxaa ka dhalanaysa saxaabadii nabiga calayhi salaatu wasalaam oo la durayo. waxaana oga hadli doonnaa sidan soo socoto. marka hore waxaad u baahannahay marka cindamaa natasafaxu kutuba taariikh, marka aan baarayna taariikhda ma helayno madaraso ka fadli badan madrasada nabiga calayhi salaatu wasalaam. laa najidu madrasatan afdala min almadrasati nabawiyati sala allahu alayh wasalam. nabiga madrasadiisa madraso ka fadli badan maba jirtaba, nafcan xagga nafciga iyo waxtarka, walaa arshada tawjiihan xagga hanuuninta iyo wacyigelintana wax kaga wanaagsan madrasada nabiga calayhi salaatu wasalaam ma jiro. walaa asadda tarbiyatan wax tarbiyada ka toosan tarbiyeyn madrasada nebi maxamedna ma jiro. ayadaa ugu wanaagsan wax tarbiyeyso. wax kaga badan ma jiro madrasada nebi maxamed inay bixiso waxyaalo badan oo wanaagsan. madrasada nebi maxamed waa madrasada ugu soo saarida badan dadka qualitiga leh ee fiican. madrasada nebi maxamed waa madrasada ugu wanaagsan xagga hadafka iyo yoolka. madrasadan waa madraso khayrkeedu aada iyo aada uu u badan yahay. nafcigeeda iyo faa'iidadeena basharkao dhan bay camimtay. madrasada sidaa aan u tilmaannay ee qiimahaa leh waxaa mathalayo oo wakiil ka ah ninkaa shiiciga ee raafidiga ah iyo haddana cajamiga carabba aanan ahayn. ninkaasaa maanta mathalayo ee ku nool magaalada nairobi dheeqadeeda iyo wasakdeeda. abibakar iyo cumar iyo saxaabadiina radiallaahu canhum wuxuu aaminsan yahay weliba inay islaamkii gelinba ooyanan islaaminba. nebi maxamedna wax cilmi ah uusan ka qaadaninba, saasuu aaminsan yahay. waa siduu isaga aaminsan yahay. marar ka mida maqdiciisa lagu weydiiyey su-aal oo abibakr radia allaahu canhu baa la weydiiyey
waxaa la yidhi abibakar waad gaalaysay waana munaafiq baad dhahday nebi moxamed calayhi salaatu wasalaamna waxa uu u dhiibay oo wakiil uu oga dhigay inuu iimaam ummadda u noqdo iimaam oo uu tujiyo marka nebi moxamed uu jiraday su-aasha la weydiiyey waxay tahay ma suuragal baa caqliga saliimka haddaan ka shaqaysiinno nin munaafiq oo gaala nebi moxamed inuu dhaho dadka salaada ka bixi oo aniga igu sin inuu yidhaahdo arrintaas sax miya waxa uu ku jawaabay ninkaa shiiciga raafidiga ah abibakar wuxuuba ahaaba tuug marka iyadana salaaduu boobayey salaaddii uu boobayeyna markii dambe nebigaaba ka soo gaaray oo kabihiisuu qaato oo u cararay buu dhahay wuxuu sidaa u aflagaadaynayo waa khaliifkii koowaad ee nabiga calayhi salaatu wasalaam xilka ummadda uu u dhiibay intuu noolaana waad ogtihiin fadaa'isha uu ku sheegay abibakar bal waayahay ila dhegaysta hadalkiisa si fiicanna ila dhegaysta si aydaan u moodin inaan ku been abuuranayo si fiican ila dhegaysta hadalkiisa nabigu sal slam wuxuu faray abubakar inuu salaada tukiyo isagoo nool ma nin munaafiq oo gaala buu dadka rasuulku yidhi tuki salaadiisu ma saxaysa annagu sida noo muuqato ninkaasi wuxuu ahaa nin tuugahoo salaada boobahayay nebigeennana markuu soo galay ninkii wuu soo cararay gadaal أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون jawaabta aad ka bixinaysaan waa iska caddahay haddii caqli fiyow aad leedihiin iimaan iska badaaya qof walboo caqli fiyow leh waa kan saasuu abubakar u gaalaysiiyey mar kale ila dhegayso isagoo saxaabadii nabiga calayhi salaatu wasalaam ku xukumaya dhammaantood inay gaaloobeen isla markaana magacyadooda tirinayo si fiican ila dhegayso إلهي القرآن كيس كريم كأكله يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا وكفروا بعد يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله من وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا حذيفة بن يمار باوحوري رجع إياه وحكم ذا وهم قواسي والله ما قدرت أبو بكر باكم ذا وعمر أيا كم ذا وعثمان باكم ذا وطلحة أيا كم ذا وعبد الرحمن بن عوف باكم ذا وسعد بن أبي وقاص باكم ذا وأبي عبيد بن جراح باكم ذا ومعاوية بن أبي سفيان نك أجيدين دي إسلام كل واحد أجيدين اللي بكسمية مجرم كهابا كم ذا كل ابن أبي سفيان وعمر بن عبد العزيز باكم ذا هؤلاء من قريش وي أما الخمسة كوحدة كاي باقي كم ذا أبو موسى الأشعري باكم ذا مغيرة بن شعبة باكم ذا كذا وكذا باكم ذا وأوس لا عدد ولا حساب رجع صودا إذن محكو عط آيات القرآن كأنا معير إلهي وكفروا بعد إسلامهم إذن هم الرجال waxaa laga yaabaa maqdacan ama cajiladan aad dhegaysatay hadda inaad ka heshid liiska magacyada uu tiranaya saxaabadaa way ridoobeen uu leeyahay ninkaa shiiciga raafidiga ah oo abubakar kow ka yahay magacyadooda inaad ka heshaa laga yaabaa wax aragtidaada soo jiito kuna baraarujiyo oo caddaynaya ninkaa beentiisa arrintaa ma ku baraarugtay haddii aad ku baraarugtay way fiicnaan lahayd inaad si fiican dhegaystow aad nala wadaagto haddii aadan ku baraaruginna waxaan kaaga dhigaynaa camalulmansili ama homework baa lagaaga dhigayaa mar kale si fiican ila dhegayso jaanis baan ku siinayaa si aad ugu baraarugtid ninkaa beentiisa إلهي القرآن كيس كريم كأكله يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا وكفروا بعد يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله من وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا حذيفة بن يمار باوحوري رجع إياه وحكم ذا وهم قواسي والله ما قدرت أبو بكر باكم ذا وعمر أيا كم ذا وعثمان باكم ذا وطلحة أيا كم ذا وعبد الرحمن بن عوف باكم ذا وسعد بن أبي وقاص باكم ذا وأبي عبيد بن جراح باكم ذا ومعاوية بن أبي سفيان نك أجيدين دي إسلام كل واحد أجيدين اللي بكسمية مجرم كهابا كم ذا كل ابن أبي سفيان وعمر بن عبد العزيز باكم ذا هؤلاء من قريش وي أما الخمسة
kooxda kale ee baaqiga ahaa ee kamidana Abu Musa al-Ash'ari baa kamida Mughira ibn Shu'ba baa kamida kada wa kada baa kamida wa Aws la adad wala xisaab ragaas oo dhan idan maxaa ku cad aayadan quraanka ana muxuu yiri ilaahay wa kafaru ba'da islamihim idan hum ar-rijal hadda waad ila fahamtay baan u malaynayaa maxaa yeelay magacyadu tirinayo ee uu leeyahay saxaabadaas oo dhan diinkay ka baxeen Abi Bakar iyo Umarna uu ka bilaabayo wuxuu ku daray liiska iyo faylka saxaabada uu tirinayo Umar ibn Abd Aziz buu ku daray Umar ibn Abd Aziz ma Umar ibn Khattab iyo Abi Bakar buu la noolaa goormuu ahaa xilligeen noolaa Umar ibn Abd Aziz ma isoo gaareen waayo tusaale ahaan Xudayfa bin al-Yamaan Allah ka raali noqdee oo ah saxaabiga tirinaya magacyada saxaabada gaaloobay sida shiiciga uu sheeganayo iyo Umar ibn Abd Aziz oo ku jira liiska saxaabada gaaloobay ismaba soo gaarinba sababtoo ah Xudayfa bin al-Yamaan Allah ka raali noqdee wuxuu geeriyooday 36 hijriyada Umar ibn Abd Azizna wuxuu dhashay 61 hijriyada macnaheeda arrinka wuxuu noqonayaa Xudayfa bin al-Yamaan Allah ka raali noqdee wuxuu geeriyooday 25 sano ka hor inta uusan dhalanin Umar ibn Abd Aziz sidee uu Xudayfa bin al-Yamaan u gaalaysiinayaa qof aanan waliba dhalanin oo magaciisana ugu darayaa saxaabada arrinta labaad Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu waxa uu geeriyooday 23 hijriyada Umar ibn Abd Azizna wuxuu dhashay saan sheegnay 61 hijriyada macnaheeda waxa u dhaxayso 38 sano ayaa u dhaxayso oo Umar ibn al-Khattab wuxuu geeriyooday 38 sano ka hor intuusan Umar ibn Abd Aziz dhalaninba siday isku meel u imaanayaan oo gaalnimo loogu wada xukumayaa waxa iyo wax la mid ah ayuu sheeganayaa oo been ah madrasada uu mathalan ka soo sheekaynay ninka iskala ma taqaana saaxibu hadhihi madrasa wa fa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam madrasada ninka shiiciga uu mathalayo ee isaga wakiilka uu ka yahay uu sheeganayo معلنكيدا ونبي محمد عليه الصلاة والسلام وياب الذي قال الله تعالى في حقه نبي محمد إلهي وكتل مامي سبحانه وتعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياتي ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين إلهي نبي محمد عليه الصلاة والسلام وحو كتل مامي معلن آدو قيمة بدن وحو يري الله وعليه إذن كسور أحساري رسول هو الذي بعث في الأميين وعليه كسور أحساري ددك أميين تي وحبا أنا قري جرين وحنا أنا أخرين جرين جهالدها رسول كاسو منهم إيجا كمدة رسولك إلهي وحو كتل مامي إنو طهيريو طهاردنا نبي محمد عليه الصلاة والسلام مركو وحتربيين أو طهيريو موقال سراء إيا قلبك إيا قدها بأصحابي سوك الظهير جري ويزكيهم ويعلمهم الكتاب كتابك بري جري نبي محمد عليه الصلاة والسلام صحابي والحكمة أحاديثي سنة بري جري مركي هربها أهادان كوا قالوا أهو لكن هذا النبي محمد عليه الصلاة والسلام باسفي عنه تربيه صاصو إلهي سبحانه وتعالى أتلمام يا نبي سإنوها معلم ناجحة تاريخ ذو حيثو يسا نبي محمد إنوها كان معلما عظيما معلم آذي آذوين ومربيا ناجحا تربية قوليستي أو ناجحة إنوها آذو تربية وقائدا متميزا نبي محمد وحوها هقامية إسوا كلا أن لا أركن شهدت ذلك عبقريته التعليمية والتربوية أرنكا وحمخراته واقعة نبي محمد تربية سي التعليم تيسي وحبرديسي إنه معلم ناجحها أي عضينيسو وحاكقل جبيي
uu soo saaray nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam madrasadiisana ka qalin jabiyey tiro aad u badan oo saxaabadiisa ah iyo saxaabada dadkii raacay annaga xataa waan ku jirnaaye fa asbaxa kullu waaxidin min asaxaaba mid kasta oo saxaabada ka mida muxuu noqday aayatan min aayaati illaah aayad ilaahay aayadihiisa ka miduu noqday wa daliilan naatiqan calaa cidami hada almucallimi alfariid iyo weliba daliil hadlayo oo tusinaya nebi muxamed inuu ahaa mucallim aad iyo aad u weyn oo isagoo kale aan la arkin ayuu saxaabada sambol bay ahaayeen nebi moxamed uu soo saaray waa ka mid ardaydiisa ka mid ah nabiga calayhi salaatu wasalaam mucaawiya binu alxakam asulami oo ka sheekaynaya yataxadatu can xusni tarbiyatihi wa tacliimihi nebi moxamed tarbiyadiisa wanaaggeeda iyo waxbaridiisa qaabku wax u beri jiray wanaagay lahayd buu ka sheekaynayaa waxa uu leeyahay fabiabii huwa wa ummii maa ra'aytu mucalliman qablahu walaa bacdahu axsana tacliiman minhu waxa uu leeyahay hooyaday iyo aabbahay lagu furay nebi moxamede maa ra'aytu mucalliman qablahu walaa bacdahu ma arkin buu dhahay mucallim isaga hortii iyo nebi moxamed gadaashii axsana tacliiman minhu ka waxbarid wanaagsan kana tarbiya wanaagsan nebi moxamed ima soo marin buu dhahay hortii iyo gadaashiiba saxiixu muslim baad ka fiirinaysaa mujalladka koowaad raqamka xadiidkana waxaa weeye 537 saxaabadii saasay u tilmaamayeen nebi moxamed inuu ahaa mucallim naajixa ayadoo arrimahaasoo dhan ay jiraan ma suuragal baa mucallimkan aad u weyne nebi moxamed ee murabbiga ah inuu soo saaro dad gaalo ah inuu soo saaro munaafiqiin inuu soo saaro dabaallo iyo doqomo aan wax fahmaynin arrintaas suuragal mi ah oo markaa nebi moxamed dadaalkiisa uu noqdo mid dhumay oo waxba aan ka jirin hal bacaad lagu lisay cabqariyadiisina ay noqoto nebi moxamed iyo caqligiisii weynaa mid feeg oon waxba ka jirin wa xusnu tadriisihi qaabbariddiisii wanaagsaneedna nebi moxamed ay noqoto faashilan yacni fashal wa tarbiyatuhu fasaada nebi moxamedna tarbiyadiisii ay noqoto fasaado lianna markuu dhaho shiiciga raafidiga kufaar iyo gaaluu soo saaray nebi moxamed maxaa ka dhalanayso nebi moxamed adduunkii buuba sii fasahaadiyeyba ila dhegeysa mar kale waa kan haddaba shiiciga raafidiga isagoo saxaabadii oo dhan diintay ka baxeen dhahayo waxaan rabaa marka saxaabadii baan sii dul socday xadiid isaguna uu warinayo ninka loo yaqaano ibnu maajah kitaabkiisa uu ku warinayo musnadka ah juska labaad safxada uu ku warinayo lambar waa safxada waa 439 abi saciid al-khudri baa waxaa laga warinaya wuxuu yiri samictu rasuulullaahi waxaan ka maqlay sallallahu alayhi wa alihi wasallam yaquulu isagoo la ala al-minbar minbarka ayuu nabigu ku sugnaa sallallahu alayhi wa alihi wasallam ma baalu aqwaamin yaquuluun qoom maxay yihiin leh oo ku qowlahayo nabiga sallallahu alayhi wa alihi wasallam qoomka iyaga abaalihi uga wada qoom waa maxay buu yidhi famaa baalu aqwaamin yaquuluuna ina raximii laa yanfacu balaa wallahi ina raximii mawsuulatun fi اddunya wاlآakhira wainii ayuha الnaasu faratukum cala alxawdi faإida jiئtu halkaas waxaa iga tirtiran kitaabka iga tirtiran qaama rijaalun baa istaagahayo faqaala wuxuu yidhi hada ya rasuula allah ana fulaanu وقال وحور هذا أنا فلان قال مركا وحور وقال وحور هذا يا رسول الله أنا فلان وقال وحور هذا يا رسول الله أنا فلان هذا اللفظ بزوز عدي فأقول وحور النبي صلى الله عليه وآله وسلم كاوى فلان كاوى فلان كاوى فلان كاوى فلان كاوى فلان كاوى فلان بالله إليه بيقول النبي فأقول وحن له يقول قد عرفتكم وأنا إذا وذا أقون صدي ولكنكم قفوا بوحولي أنا فلان بانه أنا فلان بانه أنا فلان بانه أنا ما قاعد يسيبوا شيء وحن الله يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد عرفتكم وأنا إذا أقون صدي ولكن أحدثتم بعدي ورجعتم إلى القهقرة قال فيري المستدرك على الصحيحين جزء أفراد صفحة وحوي يسونا صفحة تضباطا إيه أفر بكورنا يوحولها حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بل آدي أضفير إذن وحاسقنا وحيكوتو سنيسا ارتداء الصحابة بيكوتو سنيسا إلا مثل همل النعم بوت المام البخاري إن ير أو تروى محي وحال لي هذا قوب ير أو ترير أو لا يقان موياني أنت كلا إنا يردوبين وادركيسان
saxaabada rasuulka sala allahu calayhi wasalam inuu badankood diintay ka baxeen ilaa wax yar mooyeene uu leeyahay qaabka u dhigayay istihzaa kaaga daran miyaynan ahayn arrintaa alaysa hada tanqiisan fii xaqihi sala allahu calayhi wasalam miyaynan ahayn nabiga xaqiisii oo lagu tumanayo maxaa yeelay nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam waa mucallin faashila oo eberkii ah marka aad fiiriso fikirka iyo wuxuu ka duulaya ninka raafidiga ee xunka ah maxaa yeelay wuxuu dhahay wuxuu soo saaray arday xunxun oo munaafiqiin ah haddiiba nebi maxamed munaafiqiin iyo gaalo uu soo saaray waxay ka dhigan tahay wuxuu ahaa macallin faashil ah idan nebi maxamed buu ku socdaa oo uu dirayaa miyayna ahayn ardaydii nabiga calayhi salaatu wasalaam kana baxday madrasada nebi maxamed asxaabtii rasuulka sala allahu calayhi wasalam miyaynan ahayn kuwaasoo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu u doortay nebigiisa inay saaxiibbo u noqdaan oo ay difaacaan miyaynan ahayn khulafaau raashidiin kuwii nebiga gadaashiisa mas-uuliyadda diinta qaaday ee faafiyey ee qaarad walba gaarsiiyey soo ma ah